Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabta inagu xiran kanaalkeena ummadda ee YouTube. Ku cusub tahay daawada inagu soo biir adigoo taabanaya calaamada subscribe, dibna furo gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada waxtarka leh ee lagu baahiyo kanaalka ummadda. Ha ilaawin muuqaalka inaad like gareyso hadsanid. Gudagalno muuqaalkeena maanta. Muuqaalkan aynu idinku soo gudbin doono xayawaano isku naxariisanaya oo isku danqanaya. Daawada haddii uu maankaaga ka guuxayo, xayawaanadu ma isku naxariistaan? Jawaabteeduna waa haa. Haddana haddaad isweydiinayso sidee ayay isku naxariistaan, muuqaalkeena maanta ayaad ku daawan doontaa. Insha Allah dhammaystiro muuqaalka. Daanyeerkan oo doonaya inuu qabsado fiilada ayaa waxaa qabsatay maaso. Wuuna ka soo dhacay fiiladii, wuxuuna ku soo dhacay birar dhulka yaalo dhexdooda, isagoo miir daboolmay. Durbadiiba waxaa u soo cararay saaxiibadii si ay u badbaadiyaan. Daanyeerka wuxuu gargaar siinayaa daanyeerkani suuxsan, asagoo ku celceliyo inuu riixo xawadkiisa si uu ugu soo tooso miir daboolmadii. Kabacdi wuxuu geeyey meel biyo laga helayo, biyihii ayuuna dhex geliyey ilaa uu ka soo toosay miir daboolmadii. Sidaas ayuu ku badbaaday, waana isagoo la baashaalaya haatan. Nixaaskani wuxuu isku dayayaa inuu qabsado xayawaankani, laakiin nasiib wanaag xayawaano kale ayaa xeebta ku sugnaa oona ka badbaadiyey nixaaskii. Waxaynu dhihi karnaa ilaa ma ahayn maanta maalintii baa badbaadiyey. ama baskani oo wadada maraya ayaa waxaa dhexdiisa laga duway fiidiyogan jiidaya ay kale si uu u diido inuu jiiro ama dardaro baskani. Eyga kale kuma baraarugsaneen inuu ka laabto baskani. Taas ayuu ku badbaaday eygii, uguna badbaaday baskii. Wuxuu isku dayayaa inuu cuno dhasha ama boojaasha yar ee balanboolada ayagoo hooyadooda la joogaan. Laakiin balanboolo kale ayaa arrinkii waraabaha ka dhiidhisay oo la dagaalantay. Dambeyntii waraabihii waa uu qustay asagoo careysan iska laabtay. Waxaynu ku magacaabi karnaa balanbooladaasi eryatay waraabaha mid geesi ah, naxda ah. Sidani yar oo seegtay hooyadeeda u naxiistay. Markii ay aragtay hooyadeed, way u soo carartay hooyadeed, laakiin dariishadani oo dhalahayd ayay ka bixi weysay. Ay hooyadeed ugu tilmaamto ee ka soo baxday halkani, ugu dambeyn ee ka soo baxday halkaas oo ka dhacay kulan oo ay dhasheeda oo muddo isseegay. Meeshaas ayay isku dhunkadeen oo hab isku siiyeen. Ilaahu hooyooyinkeena inoo dhowr, ileen waa kuwa naxariis badan. Wuxuu magangelyo siiyey deer yar oo dhex joogta bartamaha keenta. Hooyadeed lama joogto, ma garanayo inay ka soo luntay in kale. Wax kale ayaa wuxuu isku dayay inuu ugaarsado, laakiin geesigii ayaa ka celiyey. Baasha waa ammaantay eedaa. Kani wuxuu dilanayaa deero. Xaaladana waxay u eg tahay inuu shabeelka ku guuleysto cunida deerada, laakiin arrinka sidaas muusan ahaanin. Rabbi naxariistiis ayay heshay. Durbadiiba daanyeer baa arkay oona ka kiciyey oo ku idhi ka bood meesha waad sigata. Sidaas ayay meesha ugu kacday, lugaheedana ayay ku fakatay. Birkani wuxuu naftiisa u huray ukumihiisa ama dhashiisa asagoo u galay khatar baabuur hoostiisa ah.
Digaan yar wuxuu isdhahay cab biyaha barkada. Nasiib daro barkadii ayuu ku dhacay, laakiin hooyadii iyo maroodi kale ayaa meesha joogeen oo ka soo bixiyeen barkadii. Sidaas ayuu ku badbaaday asiga. goortii ay marwada baawurkani kaxeynaysay gadaal u soo qaaday, waxay darday gaaray yaanyuur yar. Nasiib wanaag ayaa soo orday oo hore u dafay yaanyuurtii. Digaan yar wuxuu koray laan yar asigoo tagay laanta finta. Waa uu ka soo degi waayay laantii. Kabacdi hooyadii ayaa waxay isku dayday inay badbaadsato cunugeeda iyadoo koraysa laanta, mana suuragalayso inay korto laanta inay jibiso mooyaane. Kabacdi waa ay kortay wayna jibisay laantii, cunugeedana waa uu soo badbaaday. Bakeelahan wuxuu maqlay cod yar oo yaanyuur ah. yaanyuurtii waxay ku xirneed meel, laakiin hoos ayuu ku qoday. sidaas ayayna ku soo badbaaday yaanyuurtii. hadba daawada ha hilmaamin inaad noola wadaagtid qaybta hoose ee faalooyinka qaybtii adigoo kula cajiibsaneed. hadduu muuqaalka ku cajibiyo ha hilmaamin inaad like saartid una sheer garay asxaabtaada. wixii faala ama faalooyin ah daawada inoola wadaag qaybta hoose ee faalooyinka. waad ku mahadsantahay daawadaha qiimiga badan ee ilana soo gaaray bartamaha dhammaadka fiidiyogeena maanta. wabilaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum.